mid ka mid ah asxaabta ku xiran kanaalkayga oo gabar ahayd ayaa isoo weydiisay, wiil ayaan jeclahay laakiin uma sheeganin, asxaab keliya ayaan nahay ee sideen ugu sheegtaa. waxaan isku dayayaa inaan ka jawaabo weliba anigoo si guud ah uga jawaabayo su-aasha ah sidee wiil ugu bandhigan kartaa jacaylkaad u qabtid. qof kasta oo bini aadama, wiil iyo gabarba, badanaa ma danayno qofka inoo soo bandhigta jacaylka uu inoo qabo. xitaa haddii qofka uu yahay qof aan jecelnahay, waan dhibnaa, aadna uma danayno, innagoo isleh isaga ama iyada ayaana jecel. qofka keliya dhibaatoonayo waa adiga, kumana raaxaysan doontid bandhigashada aad u bandhigatay jacaylka aad u qabtid. laakiin halkani waxaan kugu soo gudbin doonaa 3 taatiko haddii aad isticmaasho aad ku guulaysan doontid. nambarka 1, si fudud ha ugu bandhiganin jacaylkaad u qabtid, laakiin waxa aad dareensiisaa inaad jeceshahay. si sarbeeban ugu dheh hadallo aan la fahmi karin. haddii sharaxaad uu ku weydiiyana ha u sharaxin. taasi waxa ay sababaysaa inuu in badan hadalkaaga la foguro oo uu ka fikiro ilaa uu ka fahmayo. tani waxa ay kaa caawinaysaa inaad maskaxdiisa qabsato. kugulama talinayo inaad markasta aad adeegsato, laakiin marmarka qaar u dhexgeli hadalkaaga. lambarka 2, la noqo saaxiib, balse isku day inaad kaga dugnaatid asxaabtiisa kale. markasta adeegso kuna dheh, aniga waad igaga duwan tahay asxaabteyda kale, adigana waxa aan kaa filay inaan kaaga duwanahay. waxaan kula wadaagaa wax kasta oo noloshayda ku saabsan, aad ayaan kugu kalsoonahay. haddaba isaga waxaad u diyaar garaynaysaa inuu mas-uuliyad gaara iska kaa saaro. sirahaaga ku dhowro dadka aad kaga dugnaatide. lambarka 3, isku day inaad wax ka ogaatid noloshiisa u gaarka, waxyaabaha uu iigsanayo inuu gaaro, sida uu rabo inuu u noolaado, astaamaha qofka uu jeclaan lahaa inuu nolosha la wadaago, waxyaabaha uu necab yahay. sidoo kale marka uu kula wadaago dhib isaga haysata, waxaad u muujisaa inaad garabkiisa aad istaagan tahay. niyadda u dhis, isku day inaad ka mid noqoto qayb ka mid ah noloshiisa. kadib ma loo baahan doono inaad u bandhigatid jacaylkaad u qabtid, taasi beddelkeeda isaga ayaa kuu soo bandhigan doona jacaylka uu kuu qabo. haddii ay dhici weydo uu is adkeeyo, u bandhigo jacaylkaad u qabtid, hubaal waxaa inuu kaa aqbali doono, sababtoo ah waxaad u diyaar garaysay inuu kaa aqbalo. ugu dambayn, waxaad haysataa 3 taatiko aad jacaylkaaga ugu bandhigan kartid wiilka aad jeceshahay.